shacabweynaha degmada Daroor ayaa mahadcelin ballaaran u jeediyay wasiirka biyaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Xasan Xuseen taasi oo uga mahadceliyeen ballanqaadkii ahaa in riig degdeg loo sameyn doono degmada Daroor waxaana wasiirka ka codsaday in riigga loo dedejiyo waxaanu halkan hadaan nahay shacabka reer Daroor ee degmada Daroor guud ahaanba waxaan u mahadcelinaynaa oo aad ugu mahadcelinaynaa wasiirka biyaha Mr. Xuseen Xasan iyo xukuumadda madaxweyne Mustafa inta ka bacdi mahadnaq ballaaran ee soo jeedinayno waxa weeye waa riigii labaad ee noogu ballan qaadeen xaaladuna run ahaantii aad bay u adag tahay meel yaani aan loo samri karin bixitaa imka arrintu ay taagan tahay arrinta tiraadeen qaab emergency in arrinta muxuu noogu soo horeysiyaan codsanayna shacabkuna arrintaas waxaan ku imka biyalaan in loo dhintaaba laga yaabaya kiina wax ku filaan waayay buu noqon waayay oo shacabkii uu ka farabatay ilaa 5 degmo ayaa dadkeedii iyo xoolaheedii nagu soo jabeen oo na dul saaraysta dig iyo awaare gunagado hadeebeedankeedin leeyahay gaashaamo iyo tan waa 5 degmo dad shacabkeedii baa na dul saaran in aad iyo aad si emergency la soo gaadho ayaan xukuumaddeeda sharafta leh aanu ka codsanaynaa hadaan nahay shacabka degmada halkan aanu taaganahay waa magaalada Daroor waana soo gaaray warkii farxadda lahaa ee noogu yabooday waanu kaaga mahadcelinaynaa ilaahayna waanu ku baryaynaa in dhankii walaad ka cabataba ilaahay ka kaabaan ku baryaynaa Xasan Xuseen waad mahadsantahay ilaa xad baad mahadsantahay wasiirka biyaha ee soo gurmaday ee laga sheegay riig cusub baan bilaabaya emergency waanu soo dhaweynaynaa isagana waanu mahadnaqaynaa waxa weeyaan sida ugu dhaqsaab badan inuu noogu dalooliyo waayo naftu oonka kama adkaysan karto waxyaalaha kale laakiin way ka adkaysan kartaa oonka khatar nagu maraya iyo meel halisa marka hore waxaan u mahadcelinayaa ilaahay marka xigteen waxaan u mahadcelinayaa wasiirka biyaha iyo maamulka degmada Daroor waxa ka jira abaar baahan ba ka jirta